السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalkeen cabdilcasiis iyo channelkeena suldaanka mashaariicda maanta iyo mashruuc cusub biidnillahi kariim. haddaad channelkan ku cusubteed subscribe dheh, gambaleelkana ku dhufo si wax kastoo cusub kuu soo gaaraan insha allahu tacaala. maanta waxaan leeyahay mashruuc runtii mashruuc ku cusub Soomaaliya ma ahan, waa mashruuc ka jira laakiin si kale haddaa u fiirsid waa mashruuc faa'iidooyin fara badan laga heli karo. mashruucan waa mashruuca wakaaladda safar siyaaxa ama travel agency-ga ama xafiiska dulmeedka saa u naqaan. waa mashruuc ku saabsan asaas ahaan waxaa loo asaasay in tigirada diyaaradaha lagu jaro oo si loo fududeeyo dadka diyaaradaha kora. kabacdi waxaa kusoo biiray adeeg kale maadaama nahay anagu dad muslimiin ah, dalxiiska diiniga ama siyaaxa diiniya ama saa u naqaan anaga xajka iyo cumrada. okay, xajka iyo cumrada markaan ka hadalno iyo tasaakarka tayaraanka, anagu waxaan ka hadalnay adeega rasmiga ah si caanka aan u naqaano xafiiska tasaakarka tayaraanka oo qabto. laakiin waxaa jirta adeegyo fara badan oo kale oo qabto aan dadka aan u fiirsan badankooda. waxaa ka mid ah adeegyadaas fiisooyinku soo saaraa, sawaan kaanad fiisaha dalxiiska ama fiisaha caafimaadka cilaajiga ama fiisooyinka kuwa waxbarashada jaamacadaha iyo scholarshipka iyo meelaha laga helo iyo meelaha la mid ah. iyo adeeg kale oo ah guruubyada dalxiiska sawaan kaanu dalka gudihiis iyo dalka dibadiis. طيب qodob baan usoo qabanayna. haddii aan ka hadalno bidaayatan mashruuc aad u fiican weeye. waxaa laga helaa lacag fara badan. dad baa jira mawsimka ku xisaabtama oo isku xira mawsimka xajka iyo cumrada, leanna marka dad aad saaraysid guruubyo xaj iyo cumro marka aad saaraysid dhinac waxaad ka faa'iidaysaa xajka iyo cumrada cumuulad kaasoo gadasa commission marka dadka u fududeysid, iyo dadkaas guruubyadaas dabcan digaro diyaarada u jaraysa xafiiskaaga kasii jaraysa. dad baa ka faa'iideysta oo ka dhigta yani mawsimkooda ka dhigta oo ka faa'iideysta. طيب marka anigu mashruucan aan bilaabayo awashiisaan ognahay ay mashruuc intaan la bilaabin waxaa lasoo dejiyay khudad baxs ama diraasat jadwa ama mashruucii diraaseyntii mashruuca lasoo dejiyaa. طبعا waxaa lagu qoraa buug baad ku qoraysaa ood ku diyaarinaysaa ilaa alif ilaa ya. insha allah taas waxaan u diyaarin doonaa muxaadarad kale aan u diyaarin doonaa. laakiin halkan marka la diyaarinayo khudada mashruuca yani waxaa marka mashruuca qofkii lasoo dejinayo mabda'iyan qofku wuxuu soo diraaseynaya xagga imisa lacag loo baahan yahay, miisaaniyadda lacagta iyo wixii kharaj ku baxaya sawaan kaanu xafiiska qalabeyntiisa iyo shaqaale inta loo baahan yahay iyo inta mishaaharyadooda ku baxaysa iyo office fee-ga iyo wixii xafiiska ku baxaya, iyo suuqa la diraaseynayo iyo munaafisiinta dadka isku xafiis aad tihiin ama isku shaqo aad ka shaqeysaan. okay, markaad xafiiska diyaaradaha xooga waxaa la saaraa suuqa yani diraasada suuq iyo diraasada munaafisiinta. طيب diraasada suuq haddaan ka hadalno, diraasada suuq waa maxay? intaad mashruucaad bilaabin dabcan suuqa baad usoo adeegaysaa, waxaad aadaysaa xafiisyada tigirada diyaaradaha laga furo oo soo diraaseynaysaa say wax u socdaan, waqtigeeba aad u helaan macaamiil fara badan, waqtigeeba macaamiil aan la helin, sida mawsimka xajka iyo cumrada ramadaan iyo cumrada caadiga xagaaga marka dadka ay baxayaan matalan oo dhoofayaan ama meelo kale aadayaan iyo waxyaabaha la mid ah. ba soo diraaseynaysaa intay helaan iyo intay magaranaysaa ay ka faa'iidaan iyo waxaas baad sii diraaseynaysaa. dabcan markaas adiga adeeg ugu xirantay saa usoo macluumaadka u heli doontid. iyo waxa ugu muhiimsan meesha goobta aan ka furiyo xafiiska, suuqaan ka furayaa ma xaafad baan ka furaa
suuqa xataa laftarkiisa waxaa jira meelo fara badan oo caana oo dadka maaragtay kas aadaan markay tigirada u baahdaan kasoo jaranayaan xafiisyada u badan yihiin, ama waxaan ka furtaa meel kale xoogaa ayaa ka yara durugsan. macaamiilka saa loo helo waxaasaad diraaseynaysaa. kabacdi waxaad diraaseynaysaa munaafisiinta. munaafisiinta waxa way dadka ka shaqeeya xafiiska diyaaradaha. waxaa jira qaar ka shaqeynaya 10 sano 5 sano 3 sano 1 sano 2 sano oo u socda xafiiskooda. kuwaas haddana waa diraaseynaysaa, waxaad fiirinaysaa imse ay ku daraan commissiono, imse ay wax ka helaan, imse wax dul saaraan lacagta tadkarada si ay uga faa'iidaan, yani faa'iidadooda ay saartaan. لأنه معقول maaha xafiiska agtaada inuu saarto $10 matalan adna aad saaratay $20. طبعا qofka macaamilka daa'iman wuxuu aaday wixii raqiiska kaasoo u tagay. marka laazim waa inaad haystaa ru'yad hore ama aad ogtahay suuqa si wax u kala socdaan, si hadhowdii aanad maaragtay aad isu barbardhigtid isku miisaantid intaad helaysid iyo intaad dul saaranaysid. kabacdi marka arrintaas aad xooga saartid labada qodob oo aad diraasaysid, waxaa kusoo waxaad fiirinaysaa haddana dhinac kale oo ah in hal xafiis diyaar ah oo qof rabo inuu iibiyo micnaha magaciisii wixii kaasaad fiirinaysaa. xafiis diyaar oo shaqeynaya. qaar baa jira mashruucan si fiican aan u shaqeynin oo raba inay iska iibiyaan xafiiskii bay iibinayaan macal qalabkiisii macal magaranaysa macal magaciisii macal wax kasta macal tarakhiiskiisii xataa macal dadkii ka shaqeynayay baa adiga lagugu wareejinaya. marka waa isku barbardhigaysa leen waa hore diraasay inta lagaa baahanaya qalabyadii waxay meesha lagaa baahnaa xafiiska qalabyadiis aad uma baahnaa computer iyo u baahantahay mabda'iyan iyo xafiis iyo meel kuraasi dadka maaragtay ku sugaan iyo internet iyo koronto iyo bay u baahan tahay. labadaas isku barbardhigaysa maxay fiican xafiis cusub furto ama in aan xafiis hore loo furay oo raba ninkii inuu xuquuqdiisa ama wixii inuu iska wareejiyo. kii ku raqiisan baad qaadanaysaa. طبعا xafiiska hore u furnaa wuxuu leeyahay magaciisa, wuxuu leeyahay macaamiilkiisa, wuxuu leeyahay shaqaalihiisa oo meesha ka shaqeynayay, waraaqihiisa u diyaarsan, wax kasta oo leeyahay waa u diyaarsanay. laakiin adigu waa isku barbardhigaysaa xafiis cusub baan bilaabaa mise xafiis kale aan sii qaataa. okay, arrinta marka aan kasii gudubno waxaa inoo soo haray matalan xafiiskii waxaan siri bal aniga aan xafiiska aan furto. okay, meel boos fiican baan helay, qalabkiisii waan sii diraasayay intay ugu baxaysaa, kiradii intay ugu baxaysaa, waxaasoo waan sii diraasayay. okay, xafiiska markaan markaan sii diraasayay waxaas oo dhan aan rabay inaan bilaabo mashruucan ku dhaqaaqo. kow waxaad aadaysaa goobaha wasaaradda iyo dowladda hoose ba waraaqahaaga iyo tarakhiistii iyo waxyaabaha kasoo dhameynaysa iyo magacaaga tijaariga si aad u noqotid goob muctaraf ah oo xagga dowladda iyo xagga khaarijiyadda ah cashaan mucaamalaadkaaga xagga dibadda iyo mucaamalaadkaaga xagga dadka dalka aad taqaana. qofka mar walba waxa fiican inuu waraaqihiisa sii diyaarsado. markaad waraaqahaaga aad diyaarsatid aad soo dhamaysid tarakhiistaada iyo magacii iyo meeshii wax kasta, waxaad u dhaqaaqaysaa mashruuca inaad furtid. mashruuca markaad furisid laba khiyaar baad leedahay. yaa ima inaad iska dee inaad xafiis aad furatid ood qalabeysid oo hadhowdii aad macaamiil iyo wixii aad raadisid iyo waxa, yaa ima inaad adu waraaqahaaga rasmiga aad haysatid aad magaranaysa aad samaysid inaad u tagtid masalan xafiis ama maktabad ama meel xafiis caanka ah xagga oo aad xafiiskaas ku eekaatid oo dadkaad macnaha halka isku beegtid oo aad tirahdid masalan xawaalad oo kale ama meel oo tiraad xafiis yar iga siiya oo meel yar iga sii kireeya inta macaamiil helayo. marka macaamiil helo xafiis kale furanaya. ay nacam way jiraan dad xafiis ku dhex furta way jiraan. taasna ceeb maahan inta qofka bilow uu yahay wuxuu dhahayaa halkaas igu imaada xawaalada igu soo hagaaga tigeerada iyo wixii dhan xafiis yar bay ku siinayaan halkaas ku hagaagaysa kiradoodana waad siinaysaa. way kaa fududahay inaad xafiis qalabeysid iyo meel kale aad kireysatid iyo kirayo badan ay kugu socoto. okay, طيب markaan tarakhiiskan soo dhameeyay waxaa ii soo haray diyaaradaha iyo tigeerada saa loo jarayo. dabcan tigeerada diyaaradaha saa loo jarayo arrinteedu way fududahay. waxaa jira diyaarado duwaliya iyo diyaarado oo economica oo khaas ah. diyaarado duwaliya macnaha dowladda leh, dowladda hoos tagaan,
iyo diyaarado khaas ah oo shirkado khaas ah oo hoostaga dad ama ganacsate ay furteen. labadaas markaan isu barbar dhigno dabcan dan dowladda leh adeegyo fiican bay dadka siisaa, wax fiican bise kuwana way leeyihiin adeegyo fiican. kuwa dowladda waa caalami weye, dowladda hoostaga waana caalami weye, waxayna hoos tagaan dowladda sida Ethiopia hoos tagtaa, imaaraat bay hoos tagtaa, Sacuudiya hoos tagtaa, dowladdana ka mas-uul ah. waxaana diyaaradahaas oo dhan soo hoos galaan munadama adduwaliya litayaaraan ama saan u naqano IATA waa munadamada duwaliyada oo hoos taga diyaaraankaas oo dhan. diyaaraankaas cashaan aad soo furatid dabcan waa inaad aada xafiiskooda rasmiga meesha jooga ama wakiilkooda rasmiga aad u tegaysaa, waxaa dhahaysaa anigu waraaqahayga waa kuwa, waxaa rabaa inaad soo furto. waxay ku dhahayaan awal shay waa inaad soo furataa wax la dhaho systemkay hoos tagaan waxaasu diyaarado. laba system baa jira oo Soomaaliya ka jira, Amadeus systemka diyaaradaha ay hoos tagaan iyo Galileo. labadaas system waxaa soo hoos taga yani qofka soo furta waxaa soo hoos tagaya diyaaradaha duwaliga oo dhan baa soo hoos taga iyo qaar oo diyaarado khaasa bay soo hoos tagaan. markaad aad Amadeus aad furanaysid IATA ama akoon, kow waxay kugu khasbayaan inaad shaqaysid muddo 12 bilooda oo aad xafiis IATA aad hoos tagtid, inaa shaqadaada fiirinayaan haddii dhaqdhaqaaqaaga suu yahay. waxa xafiis baad hoos tagaysaa, IATA aad u tagaysaa, waxaad dhahaysaa iisoo fur farac iga dhig, isaga wakiil rasmiya weeye, IATadu hoos tagaa. kabacdi marka 12 bilood aad tigara jartid adoo hoos tagaya xafiiskaas, hadhowdii shirkadda waxaad la hadlaysaa IATada aad la hadlaysaa, waxaad dhahaysaa fariin baad u diraysaa, waxaad dhahaysaa 12 bilood baan shaqaynayay, waa ka intaan shaqaynayay waxaas waad diraysaa, malafaadkaaga iyo shuruudahay kugu xirayaan. waxaana ka mid ah lacag damaan ah oo bankiga lasii dhigo, kabacdi way kusoo furayaan. cimrada iyo xajkana lamid, markaad rabtid inaad noqotid cimra wakiil ra'iisi, haddaad rabtid inaad noqotid iyo xajka laazim waa inaad xafiis aad hoos tagtaa 12 bilood. kabacdi mawsim cumrana mawsim bay ku xisaabtanaan, mawsim baad hoos tagaysaa, hadhowdiina markaad 12 bilood dhamaysatid waxaad noqonaysaa ra'iisiga saa u noqonaysid laazim markaas de khibrad baad u leedahay muddo sanad aad ka shaqaynaysay. dabcan markaad xafiis aad hoos tagtid iyo markaad xafiiskaaga rasmiga isku si maahan commissionka ama cumuuladda. xafiiska markaad hoos tegaysid cumuuladda aad heshid waa kala qaybsanaysaan adiga iyo xafiiska aad hoos tagtay, laakiin markaad ra'iisi tahid cumuuladda ama commissionka adaga commissionka oo dhan dhamaystiran baad qaadanaysaa. waana process ay soo maraan dadka. xataa cumrada iyo xajka waxay leedahay damaan oo bankiga lacag damaana la dhigayo عشان cumrada markaad ka shaqaysid. waayo bankiga damaan maxaa loo dhigaya عشان tigir markaad jaranaysid diyaaraanka Sacuudiya ama Imaaraat waxaad ku jaraysaa bideen, kabacdi 7 cisho markaad tigiradaada iyo waxaaga jaraysay waxaa kuu soo degaysaa faatuuradaada qaadaysaa, lacagtii lagaa rabay bankigaada aadaysaa kusoo shubaysaa. saasayna ku shaqeeyaan, faatuurada kuusoo dhacaysaa waad aadaysaa bankigaad kusoo shubaysaa. taa waxaa ku saabsan diyaaraanka duwaliga ah. طيب diyaaraanka economica ama khaaska isagana wuxuu leeyahay duwali kuwa yani international buu leeyahay iyo local oo wadanka gudihiisa. waxaa jira shirkado Soomaaliyiina waxay u badan yihiin local, laakiin way baxaan Nairobi iyo waxay aadaan Jidda iyo Dubai iyo way aadaan sida Juba iyo Daalo iyo wixii lamid ah. kuwa kale baa jira oo caalamiya oo sida Fly Dubai iyo Al Arabiya. kuwa systemkooda qaabka u shaqeynayaan uu ka yar fudud yahay tii hore. kuwa waxay sameynaysaa marka soo furanaysa mesela akoon Al Arabiya waxaad aadaysaa xafiiskooda ama wakiilkooda rasmiga magaalada ku yaala, waraaqaha geenaysa waxaad dhahaysaa waxaan rabaa inaan akoon soo furto, waxay ku dhahayn lacag isdiiwaangelin aad bixinaysaa, kabacdi waa inaad intaas ku shubtaa lacag gaaraysa 2000 ama 1500 oo intay rabaan baa ugu shubaysaa, akoonkaaga kugu soo shubayaan, lacagta isdiiwaangelintana tabcan ayaga qaadanaya. kabacdi akoon bay kusoo dhigaan, akoonkaas waxaa lagu siinayaa username iyo password baa lagu siinaya. markuu qofku u yimaado aad tigir u jaraysid matalan haddii akoonka kugu jiro 2000 tigirkaad jaraysid lacagtiisa waxaa laga jaray 2000 akoonka kugu jirta, hadhowdiina waad buuxsanaysaa. akoon mar walba la buuxsanayo ma jirto tigir deen iyo wax lagu jarayo sida kan duwaliga.
طيب maxay noo soo haray oo kale maxay noo soo haray oo kale xagga commissionka xagga tan khaaska ah commissionka khaaska ah laba kale yihiin qaar waxay sameynayaan macal lacagta tazkarada iyo commissionkaaga ku xadidiyaan ku soo dejinayaan oo tigarkay ku qorayaan hadhowdi waxay kaa jarayaan lacagtii raasmaalka tazkarada iyo commissionka way ku reebayaan qaar la waxay ku dhahayaan anagu intaasaan kaa jarana adiga in commissionka doontid saaro sida falaydiba iyo alcarabiya طبعا كوميشن كسان شيغني دراسة السوق حكو حرن دراسة المنافسين تا انت كوميشن قاطان بعد اوغانسا ادنا بلوغ ما كاد بلابس طبعا كوميشن كاغوانا وانا دياريسا لانه معاميل السوق مقع بارتين ديالتي اوكي waan ka dhamaanay shirkadii khaaska iyo shirkadihii khaaska iyo kuwii magaranaysa dawliga internationalka maxay noo soo haray waxay noo soo haray farsamo jirta oo daartid meesha inaad bilowdid lagu sii darayo farsamadaas oo ah in haddaad bilow aad tihid yani aad u haysan qalab xafiis ama meel inaad xafiis goob xafiis yar aad kasii furatid waxaa ku bannaan inaad waraaqahaaga rasmiga aad soo dhamaysatid hadhowdii online ahaan aad u jartid suuq geentaada aad ka dhigtid xagga online ahaan facebook iyo baraha meelahaas oo dadka u jirta adoo gurigaaga jooga laptopkaaga haysta taasna waxa ku fiican de qofka fahmaya laptopka iyo waxa ama بالنسبة لشقالها ماشي حفيزك مبدئيا أديو كشقة ده تقانة تجارة سالو شرو هذا تقرنين ويل يرى يركين ماشى سو تذاكر فوق بصدو أو تجارة فوق بصدو هلو دمك حفيزك باللارنا هذا قيب واحد كدقيسا قوة تجارة الشرعية قيب واحد كدقيسا قوة مالية ده هذا أسيو أنا هذا ماشى عمري حاجة هذانا قيب بعد كدقيسا وحاس وحوي بعدين ممكن ماشي يكون يناتو maxaan ii sheegi lahaa kale ha laba shay baan igala dardaarmayaa shayga koowaad mashruuc kasta ama mashruuc ahaa xafiiska wakaalada diyaaradaha markaad furaysid ha u malayn bishii koowaad inaad faa'iidooyinka helisid ama faa'iidooyinka aad qaadanaysid la xafiiska diyaaradaha ugu yaraan sanadka bacdi baa bilaabaysa inaad faa'iidooyinkiisa aad ka heshid inta sanadkaas aad ku jirtid waxaad isku dayaysaa inaad heshid macaamiil fara badan si aad maaragtay kirada iyo shaqaalaha mushaharkooda iyo biilka meesha aad kasoo saartid kabacdi marka lagu barto macaamiilkaaga ku bataan markaasaad faa'iidooyinka heli doonta shayga labaad aan rabin inaan nagala dardaarmo waxa weeye ha ku ekaanin xaj iyo cimra iyo tigirada diyaaradaha waxaa iska dhigtaa qof professional iska dhig dhaqdhaqaaq badan dalxiiska iyo fiisooyinka caafimaadka iyo waxaasaa laga hela komishooyin xoogaa yaro fiican kuwaasna isku day inaad maaragtay dad isku xirxirtid oo kasii ogaatid faahfaahin xagga wadanada joogaan iyo inta wax laga baxayaan hadday noqoto malaysia hadday noqoto meelaha hadda kole soomaalida aadan waa malaysia wey xataa dalkeena gudihiis way jiraa meel dalxiis ah macleesh waan igu dheeraaday dad videogaad ka heshay like saar haddaad weli subscribe aad dahin subscribe saar gambaleelkana ku dhufo si wax kasta cusub ay kusoo gaaraan ibn allah kariim aad baa umahadsantihiin dhegeystayaal الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين aad baan umahadsantihiin insha allah guul baan nii rajeynaya igala xariira lambarka meesha ku qoran haddaad istifsaar aad leedihid iyo haddaad wax nagu dari kartid ama fikrad ama wuxuun commentiga hoos ku qora wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu